barasaabka gobolka Saraar Axmed Maxamed Xaashi maayir ku-xigeenka degmada Caynaba Nuur Iidle Ducaale odayaha dowladda hoose ee degmada Caynaba Cumar Maxamuud Muuse suduwaha wasaaradda biyaha gobolka Saraar iyo taliyaha qaybta booliska gobolka Saraar gaashaanle dhexe aadan cabdi cawaale qoshi ayaa waxay si wada jira maanta u dhagax dhigeen dhaambiyood laga hirgelinayo gudaha magaalada Caynaba dhaambiyoodkana wax weyn ka tari doona baahida dhanka biyaha gobolka Saraar gaar ahaan waqtiyada abaaraha ayaa waxa hirgelintiisa leh dhalinyarada gobolka Saraar waxaana gacan ka geysanaya dowladda hoose ee degmada Caynaba ugu horeynba halkaasi waxa ka hadlay Axmed Sahal Jaamac Ileeye oo isagu lahaa fikradda hindisaha mashruucan isuduwaha wasaaradda biyaha gobolka Saraar Cabdilaahi Maxamed Warsame xogayaha dowladda hoose ee degmada Caynaba xildhibaan Abubakar Shida Cali taliyaha qaybta booliska gobolka Saraar iyo maayir ku-xigeenka degmada Caynaba waxayna si weyn ugu dheeraadeen muhiimadda uu dhaamkan u yeelan doono dadweynaha ku dhaqan gobolkani Saraar waxa maanta ay taariikhdu tahay 25 bishii 6 2020 ilaahay inoo rumeeyay hamiye kamid ah hamiyadii dhalinyaradu ku hamiyeysay 2 7 ama 4 7 u dambeysay kaasoo ahaa in magaaladeenu ay hesho dhaam biyood waxa ilaahay mahadiya inuu maanta hamigeeni ahaa inaynu dhaam helo dhaamkaasoo ka kooban konton lagu dhuftay 52 mitir oo hoos ah dhaamkaas hadaan ka warbixiyo waxa iska kaashaday dhalinyarada gobolka Saraar qurba joog iyo qolqol joogba iyo dowladda hoose ee degmada Caynaba labada qaybood baa iska kaashaday waxaan u mahad celinaynaa cid kasta oo dhalinyaro ah oo hawsha ka qayb qaadatay waxaan leenahay ilaahay miisaanka xasanaadka ha inoogu daro dhaamku wuxuu inoo qaadi doonaa insha Allah tacaala 1562 booyadood oo biyo ah waxay ilaahay mahadiye inuu dhaamkaas aan ugu tala galay inuu magaalada ha qabtiro muddo 2 bilood ah roob kasta oo daa in 2 bilood uu magaaladu kaliya ka cabto taasoo ka meesha ka saari doonta biyo la'aantii laga caban jiray runtii arrintan waa arrin maanta farxad ah inaan maanta bilowno dhaamkii ayagu dhalinyaradu abaabuleen anigoo runtii aad ugu amaanaya kuwa dibadda kuwa dalkaba hawshan lagu jiro waxa nooga qorshaysan inaan ku darno kulli qaybteeda oo wasaaraddiina ay gaadhay qoraalkeedina uu yaalo jawaabtina waan sugayaa insha Allah bidmilaahi kariim runtii waxa arrinkan waxa weeyaan fikrad ka soo maaxatay dhalinyarada wax baratay ee gobolka waana nasiib wanaag deegaan kasta ama dalku wuxuu ku hormaraa aqoonta ayuu ku hormaraa runtii aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa fikirka fiican ay keeneen hawsha fulinteeda qaybta hore wajiga hore waxa iska kaashaday dowladda hoose ee degmada Caynaba iyo dhalinyarada oo fikradana leh hadii aan la ku ururiyay dhaqaalahana qaybtooda qaatay 50%. waxaan rajaynaynaa runtii wax weey oo baahan u diray wasaaradda biyaha inay iyaduna wixii dhameystira farsamo ah ka dhinaada hawsha insha Allah bidmilaahi inay ku sii dari doonto hadii alla ka dhigo dibadda gudubada dhalinyarada gobolka Saraar aad iyo aad baan ugu hambalyeeynaa hadaan golaha deegaanka waxaan doonaynaa inaan fikirkayada ku darsano dowladda hoose waxaan ku codsanaynaa in qorshe dhaqaale u sameeyso dhaamkan si loo dhameystiri lahaa Rasuulullah sallallahu alayhi wasallam aad iyo aad baan u hambalyeeynaa aad iyo aad baan ugu soo dhaweynayaa dhalinyarada Saraar ee fikirka keentay iyo dowladda hoose wax qabadka dhaamka biyaha ee macaan alxamdulillah rabbil caalamiin waxa maanta inoo suurowday inaynu halkan ka sameeyno dhaam biyood oo baahida ugu weyn ee magaalada haysatay ahaa xagga biyaha macaan dhaamkaas sidii la sheegay waxa iska kaashaday dhalinyarada gobolka Saraar iyo dowladda hoose maamulka dowladda hoose insha Allah kii ugu horeeyay ugu dambeeyay noqon maayo waxa weeyaan dar kalena hadii la ka dhigo waan ku haynaa istariga in la sameeyo ugu dambeyntii barasaabka gobolka Saraar Axmed Maxamed Xaashi ayaa si weyn ugu mahadnaqay dhalinyarada gobolka Saraar iyagu lahaa fikirka dhismaha mashruuca dhaamkan lagu hirgelinayo kaxaana uu si weyn uga sheekeeyay muhiimadda ay leedahay wax wada qabsiga iyo in bulshadu u kacdo horumarka gobolkooda runtii waa arrin aad u qiimo badan maanta inaan halkan dhagax dhigno ballay danguuda oo ay fikirkooda lahaayeen dhalinyarada ama aqoonyahanka gobolka xukuumad ahaan aad baan u soo dhaweynaa fikirka runtii waxtar weyn bay dadkan u tahay sababtoo ah inaga baahidayna ugu weyn gobol ahaan iyo dhammaan gobolada kale ee barigaba waxa la wada socdaa inay biyahoodu yihiin biyo qadhaadh fikirka ugu fiican ee dhalinyaradu ka fikirtay ama aanu anaguna ku raacsanahay waxa weeye in biyaha oogada la qabto biyaha oogada ee roobka in la qabto oo dhaamam la helo taasoo runtii fikir aad u fiican ah intii gacan ka geysatay iyo dhalinyarada aad baan intaasi uga mahad celinayaa jaamac boodacade
warbaahinta qaranka Somaliland Caynaba.